بسم الله الرحمن الرحيم دغيسيا شيقايا qiimaha lahow halkani waa Tricia codka afka Soomaaliga ana Xamdi Ahmed Ali aan la socodsiya habeenka soo talaadaha 8 barkii ilaa 9 barka inkastoo oo sida aad ogtihiin ay carqaladeen ugu sameysay maaragtay cudurkan coronavirus oo ku haya wadankeena farakul khasatan gobolkeena Victoria waxa haddaan idinla wadaago waxyaalihii ugu dambeeyay cudurkan runtii si lama filaan ah oo la socotaan ayuu si gacmaha aad u agtaa inuu ka baxay faraha ka baxayo uu uga dilaacay laba kacaloodkii labaad wax lagu tilmaamay laba kacaloodkii labaad gobolkan Victoria taasoo mararka qaarkood dadka laga helayo maalinkiiba uu mar 700 oo ruux u dhaafay laakiin se alxamdulillah hadda aad moodid inay maaragtay tiradii ay aad iyo aad u soo yaraanayso oo isbedel weyn u dhacayo maadaama aanu galay stage-kii afraad dabaqadii labaad ee dadka lagu xadidahayay bixitaanka ay guryaha ka baxayaan waxaanu ognahay jaaliyaddeena Soomaalida bilowgii stage-kan saddexaad markii uu bilaabanay wax yar ka hor wuxuu ahaa meelihii dadkeenu ay deganaayeen xaafadda North Melbourne iyo Flemington inay ku bilaabatay oo maaragtay markii u horeysay runtii aanu aragnay inay baxogo maaragtay tacaddi inaga uu yahay laakiin se dhab ahaantii aakhirkii soo baxday arrintu inayna saa ahayn tacaddi inayna ahayn macnaha ay runtii wax soo socday oo gobolka Victoria dhan soo socday uu ahaa oo si haddii loo fiiriyo la dhihi karaba inay inaga inoo ahayd badbaado ama dad badan oo dadkeena duqeyda ah ay badbaado u ahayd waxaan la soconaa in maalmihii ugu horeysay arrintan ay dhacday ka dhacday meeshaasi inay waxaan umaleeyaa usbuuc gudihii laba usbuuc gudahood 3 ruux mise 4 meelaha gaadhaysa oo dadkeena ehelka Soomaalida community-ga ayaa Allah u naxariisay u geeriyooday dad kale badanna waa ku dhacay inkastoo aan kadib aanan maqal wax maaragtay si badan haya oo tiradaasi waxay safar kulul ku qabtay cudurkan dadka guryaha lagu xanaanayo dadka duqeyda ah marka haddaba sida aad hadda dadka video-ga daawan doona ay ku arkaan screen-ka xaaladii u dambeysay ee maanta oo ah ay tahay taariikhdu 18 bishii 8aad waxa dadka laga helay cudurkan oo runtii aan u malayn inuu yahay muddo hadda aad u dheer numberkii Israa'iil ugu yarayd 222 ruux ayaa 24 saac ugu dambeysay laga helay cudurkaasi guud ahaan haddii la fiiriyo dadka haddadan active-ka ah macnaha ay cudurkii uu wali hayo inuu xanuunsan yahay oo uu masakaraad yahay ama uu jiran yahay macnaheedu ma aha laakiin dadka cudurkii uu ku jira hadda waan maartay wali jirka uusan ka bixin waxa weeye 7274 weeye dadka caseska guud ahaan Victoria oo dhan laga helay 17238 case weeye 20 iyo maaragtay 24 saac ugu dambeysay dadka laga qaaday testiga resultkoodii la helay la ogaaday waxa weeye 17491 testiga guud ahaan dhacayna waxa weeye 1,992,521 macnaha adigu 2 milyan bay ku socotaa say ay u muuqato dadka la test gareeyay cudurkan macnaha la baaray 665 ayaa ku jirta isbitaal hadda 665 ayaa ku jirta isbitaal 47 665 ruux 47 kamid ah waxay ku jiraan waxa la dhaho intensive care ama maartay meesha dadka lagu xanaaneeyo ruuxu uusan si caadi ah asaga maartay qalab inuu ku rakiban yahay mooyeen ay xaaladiisu khatarta galayso 12 saacadood ugu dambeysay nasiib darro waxa dhimatay iyadana 17 ruux ayaa dhimatay tiradaasi ayaa runtii aan maaragtay aad wali u sareysa dhowrkii usbuuc ugu dambeysay inkastoo aan shalay ay ahayd markii ugu badnayd 25 ruux ay dhinteen waxa ilaa hadda gobolkan Victoria waxa dhimatay 351 ruux ayaa dhimatay waxa khubaradu ay uga digahayaan dadka in loo diyaar garoobo numberkaasi dadka dhintay ah inuu aad u bato waxaana taas ay tahay ku saleysan tahay in uu maaragtay ay arrintu dadka meelaha dadka duqeyda ah lagu xanaaneeyo oo cudurkan asagana uu hadda aad ugu badan yahay oo dad badan u hayo ayaa loo arkaa inay tahay arrinta sababta oo ah keeni karta in macnaha dadka dhimashadu uu sii bato waxa aad wararka ka maqlayseen dhageystayaal in
وحقو إنكستا ودولة مدحضو لبدا الدولة دود خاصة دولة قبلك دولة قبلك جودهان هي دولة فدرال كده ayagoo aad ka dareemayso inay aad iyo aad uga taxadarahayaan inaynan shacabku u arag inay dagaalamahayaan oo qoloba ay isdifaacayso wixii ka dhacaya ee dadka haysta meeshii ay dadka dantooda iyo badbaadintooda ay xoogga saari lahaayeen iyagoo taa aad uga taxadarahaya oon rabin inay u arkaan shacabku inay dagaalamahayaan qoloba isdifaaca is leedahay oo dadka dantooda aynan xoog saaraynin haddana waxaa caddayd in baryahan ay maaragtay farta la isku yara fiiqahayay khaasatan markii laga soo bilaabo New South Wales oo ahaa gobolkii arrintan markii u horeysay dad badan oo ku dhacay taasoo calaaqad la lahayd maraakiibtii dadka dalxiiska u aadaan oo markab dad cudurka laga helay ay markaadina si lama filaan ah dadkii loogu ogolaaday inay ka baxaan markabkii oo dib maaragtay ugu soo noqdaan magaalada Sydney taasoo la isweydiiyay oo yaa ka mas'uul ah taasi waxa dawladda gobolku ay tiri arrinta markii la dhaho quarantine ama maarta xuduudda oo la ilaaliyo sababtoo markabku dibadda ayuu ka yimid dalka ayuuna soo galay maadaama badda uu ka soo baxay dalka ayuu soo galay dawladda dhexe ayaa quarantine-ka iyo xuduudda u xilsaaran marka dawladda dhexe ayay ahayd wixii inay ogaato oo la socoto meesha ay dawladda dhexana ay tiri maya anagu caafimaad oo ma xilsaarin arrimaha caafimaadka iyo wixii maaragtay noocaas ah iyo baaritaankooda waa shaqo gobolka u taala annagu waxaanu ahayn inaan fiirino kali aha dadku inay sharci haystaan iyo baasaboorka iyo waxyaalahaas oo kaleete ma ahayn inaanu caafimaad ma ahayn arrinta noo saaran annaga ma aynan ahayn marka arrintaasi waxay u xil saareed gobolka ayay ahayd laakiinse baaritaan la soo saaray waxay u ekaatay inay dawladda gobolka arrintaasi ay maaragtay u saarnaa mas'uuliyadda ugu weyn oo maaragtay wasaaradda caafimaadka ay ahayd sababtoo ah inay ogaadaan ayna baaraan aynan maaragtay marka hadii ay dhinaca xagga sharciga ah ay arrin oga timaado dadku inay dhahaan maaragtay inaanu galaan rabnaa inay marka dawladda dhexe ay la wadaagaan oo ay dhahaan arrintan shaqadiina weeye dadkani waxaan u aragnaa inay dalka soo galaan ama magaalada ay soo galaan inaynan caafimaad inay wanaag ahayn marka iyaga marka wixii shaqadooda ay u gudbiyaan laakiin sase inay arrintan xagga caafimaadka iyo assessmentigeeda inay ahayd dawladda gobolka ayaad maaragtay aad moodaa waxaa kaloo iyadana sidoo kale laga dareemayay iyadana inay gacmaha farta la isku fiiqayo arrinta ka socota gobolkan Victoria taasoo dhimaanshaha runtii ugu badan iyo dadka uu ku dhacaya intooda badan ayba u badan yihiin maaragtay waxa la dhaho age care-ka meelaha dadka lagu xanaanaday waxa marka dadku isweydiin karaan maxaa ka socda meesha maxay tahay miyeen age care-ku ka tirsanayn gobolkan Victoria ma meel ay macnaha soo maxaa jira wasgo'an waxa jira waxay tahay sidaduba dalka Australia marar horaan in badan ka hadlay wax yar kadibna waxaan jeclay iyadana mar inaan ku soo noqdon ka hadlo saddex dawladood ama saddex maamul ayaa ka jirta oo la doortaa midka ugu awood badan xagga dhaqaalaha markii la dhaho iyo dibadda waxa weeye oo meelaha xadidanna maamula waa dawladda dhexe ama dawladda dhaho federaalka laakiinse midda ugu awood badan xagga markay noqoto shacabka la macaamilkiisa iyo waxa day to day la dhaho ama maartay yoomiga ah nolosha yoomiga ah gacanta ku haya waxa ugu badan gobolka laakiinse saan iri meelo waxa jirta ay dawladda dhexe ayadu ay u leedahay asliyan maamulkeeda ay leedahay waxa kamid aha waxa la dhaho cooperationka kambaniyada ama organizationada waaweyn waxay ka diiwaan gashan yihiin nidaamka dawladda dhexe sidoo kale hay'ado waxa jirta iyaduna ay dawladdu gacanta ku hayso oo dawladda dhexe ay gacanta ku hayso hay'adahaasi oo ay sharciyeyso oo maartay sharciga iyadu ay dejiso ay ka hoos shaqeeyaan dawlad organizationadaas waxa kamid aha age care-ka dadka duqeyda ah meelaha lagu xanaaneeyo ayaa kamid ah laysanka waxa siisa waxa monitor garaysa oo maaragtay inay check samayso inay ka soo baxayaan shuruudoodii iyo fanka xataa lacagta lagu dadka lagu xanaaneeyo iyo dadka lagu maaragtay xanaaneeyo lagu dayactiro waxa bixisa dawladda dhexe marka dadkii markuu cudurkan uu bilowday waxa la leeyahay dawladda dhexe ay ahayd inay ogaato khatarta cudurkan coronavirus uu leeyahay maadaama oo from bilowga ugu horeysay ay cadayd
dadka ugu daran cudurkan ku dhacaya uu dilahayo ku dhacay bas tamay dilahayo inay dadka duqayda yihiin inay marka dawladda dhexe ay xil weyn iska saarto oo shuruud adag u soo dejiso oo ka mid tahay sidii looga badbaadin lahaa dadka duqaydaha cudurkaasi sida dadka ka shaqaynaya in ayagana loo dejiyo shuruud adag oo waxyaalaha lagu soo celceliyo waxa ka mid ah ee keentay inuu cudurkani aadka ugu dhaco guryaha duqayda dadkan wallahi waxa ka mid ah lidii dadkii ka shaqaynayay oo normaali inta badan loo arko inay yihiin dad aan mushaar fiican qaadanin oo maadaama shaqadu runtii shaqo aad u adag ay tahay dad xirfad sare aan lahayn kuwa qaarkood ay yihiin dad maaragtay xataa aan sharci buuxa aan Australia ku lahayn ay ka shaqeeyaan markaas aynan sharcigii toos aynan u raacaynin sidii waxa la dhahayay protective la dhaho kale qalabka la xidho galaafyada la xidho gacanta in la dhaqdo qalabkan kale markii maaragtay arrintu ay wax jiro inuu cudurkii meesha ka jiro loo meeliyo ruux dhan qalabkii isku wada xidhahay uu xidho soo asagana nabad uga noqdo dadka ugu gudbinin waxa kale oo iyadana arrintaasi qayb ka sii qaadatay baa la yiri dadka qaarkood oo ka shaqaynayay meela kala bedelin maadaama oo shaqadoodu ay haystaan ay hal meel uga shaqeeyaan aynan ahayn shaqo sugan oo full time ah oo maaragtay permanent ah waxay shaqadooduba ay ku dhisnayd inay maaragtay si ay qutul-yoomkooda u bixiyaan inay dhowr meelood ay maaragtay ay ka shaqeeyaan dhowr age care ay ka shaqeeyaan oo laga yaabo 2 ilaa 3 age care mid maalin ay ka shaqeeyaan mid kalena maalin kale ama hal maalin gudihiiba dhowr saacadood meel ka shaqeeyaan dhowr saacadood kale meel kale ka shaqeeyaan taa marka waxay sababtay marka ruux uu cudurkii uu ku dhaco qandhi iyo wax dareemayo inuu kow maadaama shaqadoodu ayna sugnayn oo dad laga yaabo sharci buuxa aan lahayn oo shaqadooduna full time aynan ahayn sababtoo ah dadku full time markay yihiin in shaqada laga eriyo way adag tahay aad bay u adag tahay ruux full time hadduu yahay permanent ah afan full time kaliya ama full time oo permanent ah waliba permanent ayaa xoog badan hadduu yahay ruuxa in macnaha laga eriyo shaqada way adag tahay marka waxa u suurtagal ah ruuxu inuu dhaho wax xanuunsanahay ma imaan karo inuu cudurdaal yeesho way u sahlan tahay laakiin ruuxu hadduusan ahayn permanent waxa sahlan haddii wax lagu arko inuu shaqada ka yar baqbaqanaya ama wax yar oo maartay loo helo excuse ah ama maartay sabab loo helo in shaqada laga eriyo xataa hadayna dhacaynin ba xataa ruuxii maadaama uu og yahay inay sahlan tahay shaqada laga eriyo asagii naftigiisa ay aad u sii ilaalinaya oo ogolaanaynin inuu xataa uu maartay sababta lagu eriyo kala inuu sameeyo taa marka waxay sababtay ruuxii markuu yara xanuunsan yahay oo hargab wax dareemayo iyadoo la lahaa hadaad in yar oo xanuuna dareemayso hargab dareemayso ha aadin shaqada isbaar la lahaa inay dadkii shaqadii aadeen ayagoo ka cabsanaya shaqadooda ay luus gareeyaan inta bas kuma ekaanine waxay kale sii keentay inuu ruuxii laba shaqo haduu ka shaqaynayay oo shaqadii tan halkan ana tagay tii kalena uu tagay marka macnaheedu waxa laga yaabaa laba shaqo cudurkii haduu ruuxii ku dhacay laba xarumood oo waliba laga yaabo inay kala fog yihiin inuu labadiiba ku talaalo oo maartay uu geeyo cudurkii uu geeyo oo waxaana sabab noqotay arrintaasi waa kow asagoo ruuxii maadaama uusan permanent ahayn shaqadii aan ka joogi karin oo dhihi karin maartay dhihi karin waan xanuunsanahay oo ma imaan karaan dhihi karo ka cabsanayo shaqadiisii inuu luus gareeyo ama shaqadii laga eriyo labo asagii oo shaqadiisa oo ahayd wax lagu tilmaamo maartay unsecure shaqo aan sugnayn ay tahay oo uu maartay laba meelood saddex meelood uu ka shaqaynayay inuu marka haddana laba meelood uu ka shaqaynayo oo shaqadiisa ay haddii ruuxu shaqadiisa ay sugan tahay shaqada ugu fiican ee ruuxu uu ka shaqayn karo waxa weeye shaqada uu hal meel ka shaqeeya hal company ama hay'adna uu u shaqeeyo haddii ruuxu heli karo taas way midda ugu fiican sababtoo yaa raba inuu yeesho dhowr ruux inay u taliyaan ama kulba meel cusub maalinkii inuu tagahayo ama kulba maartay company cusub uu tagahayo taas oo dhan waxay ku tusaysaa marka inay ruuxaasi shaqadiisu ayna sugnayn oo shaqo sukuu ah inuusan haysanin tiiba marka arrintaas iyadoo isku darmatay dawladdii dhexe oon shuruudo adag iyo dabarraac adag oo dhahaysa xaalad cusub baa socota khatar baa lagu jiraa waa in wax badan laga bedelo la jeegareeyo hay-adaha maamulahaya inay shuruudaa raacahayaan nidaamkoodii iyo processkoodii wax ka bedeleen aynan iyadana loo leeyahay ma ayna raacin oo ma aynan maartay sidii loo rabay ama ay sheegayeen oo ma ayna sameeyeen waxyaalihii ka soo baxay baa waxaa ka mid ahaa waxaad la socotaan Royal Commission ama baaritaanka sare oo sharci ah oo dadka duqayda ah xaaladooda la baarayo oo socotay ayaa waxay maqleen in waxyaalihii u dambeysay baaritaankii la waday ayaa nin
u hadlahaya ruuxan ama commissionaha arrintan u xil saaran commissionihii ma aho go'aan u soo saaray ma aho ayaa runtii si kulul u hadlay oo aad meediyaha looga sheegaya usbuucan taasoo ay ka mid ahayd oo uu yidhi waxaa ka mid ah waxyaaluhu yidhi in dowladda dhexe aynan iska daa inay horaan u diyaar garowday cudurkan coronavirus iyo dadka age care-ka degan sidii looga badbaadin lahaaye haddadan la joogo ayaynan hay-adaha age care-ku haddadan la joogo waa usbuucii hore weeye ayaynan diyaarba ahayn ayaynan diyaar ahayn oo u diyaar garaysnayn ayuu yidhi waxaa kaloo uu yidhi iyaduna dowladdu dhexe qorshe balaan ah oo arrintaa lagaga hortagahayo oo ay kula talinayso ama ay ku amrayso hay-adaha age care-ka iyo waxaan samaynayana iyadana ma jirto ayuu yidhi inkastoo oo dowladdu iyadana si kulul arrinta uga jawaabtay oo tiri laba midda uu ninkan ku hadlahayay u hadlahayay aan dhaho codka commissionaha waxaa la dhahaa markaan haddaan yar sharxo u hadlahaya macnaheedu waxay tahay ma aho qoraal ama go'aan ay soo saartay commissionuhu ma uu aho waana mid ay ahayd dowladdu runtii ama ra-iisul wasaaruhu uu carabka si adag ugu dhuftay oo uu yidhi waxaa u baahan in arrinta la kala saaro oon la isku khaldin commissionuhu ma hadlin qoraal lama soo saarin go'aanna weli ma soo saarin wuxuu yidhi laakiinse wuxuu yidhi arrintani waa laga sheegay meesha ama nin u hadlahaya commissionaha u hadlay maxay tahay marka xogow hadda inta idiin sharxo marka commission la sameeyo waa sida qaali oo kale oo weliba la dhihi kara qaali ka awood weyn oo kale ayuu leeyihiin awoodda ay leeyihiin commissionaha waxa la dhaho oo maaragtay royal commission oo arrin aad xasaasi u aha aad u muhiim aha loo baahan yahay salkeeda in la gaadho ayuu guddigaas oo kale loo saaraa awood buuxduuna leeyahay ruux kasta ay u baahdaan inay u yeedhaan oo ay dhahaan kaalay nala hadal inaan lagu waraysaa la rabaa mana diidi karaan hadduu diido waxay xaq u leeyahay inuu guddigaasi ruuxaasi xabis in la xidho ayuu awood u leeyahay inay ku amraan ilaa uu ka ogolaanayo uu ka imaanayo oo ka hadlahayo marka guddigaasi marka ruuxa commissionaha ahaa qaaligoo kale u dhigma arrintani daadihinhaya xukumahaya fikradiisu go'aankiisa soo saarahaya waxaa caawiya dad looyara ah ayaa caawiya oo lagu tilmaami karo inay yihiin baadhayaatiisa kuwii wax baadhayay marka waxaad arkaysaa marar badan ayaga oo waraysanhaya dadkii hay-adihii la baadhayay oo commissionuhu baadhayay ayaa waxaad arkaysaa ayaga oo waraysanhaya oo ka fandi celinhaya akhbaar su'aalo aad u adag su'aalahaya statementyo aad adag ku sheegaya oo dhahaya maaragtay sidanaad wax u dhacayn soo ma aho sidanaad samayseen soo ma aho arrintaa maxaa ka jirta marka ma aho hadalka marka uu ruuxaas oo kaleeto uu dhaho ma aho arrin dhammaatay oo ah xaasilkii uu guddigu soo saaray oo ruuxan qaaliga oo kale ama wax ka sarreeyaba go'aankii u dambeeyey ay soo qaadeen ama natiijada ay soo gaadheen ma aho laakiinse haddana arrin la fudaydsan kara ma aho oo waxaa weeye shakhsi looyar aha naftigiisu meel sare gaadhsiisan arrintanna meelo badan ka fiiriyey oo laga yaabo inuu yahay waqtigaa asaga ahaa ruuxa ugu dhow xagga wararka iyo akhbaarta maadaama uu yahay gacanta u shaqaynaysa commissionahan oo nidhi ruux kasta ayuu amri karaa documenti kasta ayuu amri karaa in loo keeno oo maaragtay ay arkaan marka maadaama ruuxani ay yihiin dadkii arrintaasi fulinhayay ee arkahayay ee dadka waraysanhayay waxay og yihiin wax aad u badan ayay og yihiin dabcan mararka qaarkood iyaga oo doonahaya inuu wax dheeraada soo baxo ayay waxay samaynayaan waxa la dhaho assertion ama maaragtay ay dhahayaan wax tuhumo ka soo qaad baa jirta oonan xaqiiqo cad lahaynin markaasay su'aashii ay tuhmada ku salaysan ayay markaa hordhigahayaan dadkii ay baadhahayeen oo ay leeyihiin arrintu saa miyayna ahayn oo maxaad ka leedahay ama saasaanu aaminsannahay inay tahay xaaladdu maxaad ka dhahaysaa ama la doonahayo inuu ama hay-ad ha noqoto ama dowlad ha noqoto ama shakhsi ha noqoto inuu markaa isdifaaco oo uu warkaasi war ka bedelan hadduu hayo ama uu khilaafsan yahay inuu sheego laakiinse haddana se arrin la fudaysan kara ma aho walidaa bay arkaysa media inay aad iyo aad ugu celceliyeen hadalkii uu ninkaasi caawinaya commissionaha uu yidhi oo ahayd hay-adaha age care-ku ilaa waqtigan ayayna diyaar u ahayn maaragtay sidii looga hortegi lahaa cudurkan coronaviruska ee dadka looga badbaadin lahaa kale oo yirin waxaa ka mid ahaa dowladdu wax qorshe ah dowladda dhexe oo balaan oo cad
oo u samaysay ma jirto maaragtay sidii dadkan looga badbaadin lahaa coronaviruska iyo maaragtay arrimihiisa oo looga badbaadin lahaa haddaba marka taas weeye the age care-ka waxaa u xil saaran oo sharcigoodu iyo fankiisa maamula dowladda dhexe dowladda gobolku ilaa xad way maaragtay way soo faragelin kartaa laakiinse way xadidan tahay waxaad ugu dambeysay oo iyadana maqlayseen iyadoo la leeyahay dowladda gobolka oo la wareegtay qaarkood iyadoo ay la wareegtay maxay tahay taasi macnaha sida uu age care-ku shakhsi ama hay-ad ay company u yeelan karaan taasoo fankeedu ka imaanaya dowladda dhexe ayay marka iyaduna dowladda gobolkuna ay age care-yo iyadoo ay maamusho ay jirtaa oo marka xaggii markay noqoto ayagay maamulkoodii gobolka ahaa wuu ku dhex jiraa oo way maamulahayaan kii xagga fanku ka imaanhayo iyo sharciga guud ay ku shaqaynayaanna waxaa noqonayaa midkan dowladda federaalka ka imaanhaya walidaa ayaa marka ka mid ahay dowladda gobolku markay doonaysay inay la wadaagto waxa ka dhacaya gobolkan Victoria oo kale inay dowladda dhexe ayna ka maqnayn ayay waxay dhahayeen dhimaanshaha ugu badan iyo cudurkada meelaha ugu badan ee ku dhacayo waa dadkii age care-ka ah weeye kuwa annagu aanu maamulana waa meelaha weli waqshaxan mar waxaa ka mid ahayd inuusan weli ruux ka dhimanin age care-yada ay dowladda gobolku iyadoo maamusho laakiinse kuwa kale ay tahay macnaha federaalku ma maamulaan kuwan uu dhimaansho u badan ka dhacayo laakiinse sharcigooda ayaa lagu maamulaa oo macnaha waxa weeye ashkhaas ama kambaniyo hay-ado ayaa iskale oo maaragtay dad ay leeyihiin waxayse ay maaragtay ay ka hoos maamulaan oo ka hoos yimaadaan sharciga maaragtay dowladda dhexe waxaa kaloo iyadana aad loogu celceliyey iyadana la isweydiiyey arrintii ka bilaabatay oo la leeyahay hadda weliba inay dhammaantood ka bilaabatay quarantiinkii maaragtay hoteelada lagu quarantiin gareeyay taas ayaa runtii eedayn aad u fara badan loogu soo jeediyey dowladda gobolka baramiyaha maaragtay oo loo arkahayey markii ugu horreysay bilowgii hore markuu baalkan bilowday inuu ahaa runtii madaxdii ugu cadcadayd ugu adkayd ee go'aamada adag qaadatay ka hortagga cudurkan oo loona arkahayay inuu ahaa Victoria gobolkii ugu maaragtay ugu horumarsanaa ka hortaggiisa markii ay arrintan bilaabatay ayaa runtii eedayn aad u fara badan عفوا لو سو jeediyay arinta marka maxay ku salaysantahay maxay tahay waxa wali baaritaankeedii baa socda oo dawladdu waxay u baadhay waxay u bixisay guddi ayay u bixisay arinta baadhaya inquiry oo ka sal gaarayo wixii dhacay laakiinse waxay sheekadu u eg tahay oo ku socotaa inuu ahaa wixii dhacay inuu ahaa ayada oo dadkii security-ga ahaa macnaha dad dib u noqdo marka dadku ay ka soo degaan airport-ka waxa laga soo qaadahayay basas baa laga soo qaadahayay ayagoon loo ogolan inay meel kale ay aadaan markay basaska laga soo qaado waxa la geynayay hoteelada marka waxa waardeynayay security ah oo private ah ayaa waardeynayay marka waxa la leeyahay security-gii ayaan dadkii ay meesha ku waardeynayeen oo ahay dadka inuusan ka bixin meesha inta ay 14 maalmood uga dhamaanayso inaynan dad kale xiriir la sameeynin inta 14 maalmood uga dhamaanayso ayaguna aynan xiriir toos ah la sameeynin waxa la leeyahay marka xiriirkii ayaga iyo u dhaxay dadka ay ilaalinayeen ayaa dhacay xiriir baa dhacay macnaha taasoo marka ay security-gii qaadeen cudurkii ayaga qaadeen deedna ay marka u gudbiyeen qoysaskoodii iyo reerahoodii marka reerahoodina ay u sii gudbiyeen dadkii kale iyo community-gii arinta mid ka yara bedelana maalmahan iyadana waa la sheegayay oo age-ka ka soo qaad uu daabacay in ruuxii ugu horeeyay laga hay horta in la yiri laba hotel ayaa lagu soo ururiyay oo ay ag tahay inay tahay labada hotel ee dhibaatada ugu weyn ee ka dhacday waa hotel yiraahdo Regis oo ku yaala Swanston Street xafadan actually Carlton iyo mid Stamford la dhaho oo ku yaala magaalada City ku yaala labada hotel ayay ugu badan yihiin waxa khaasatan ay sii dhaheen hotelka Regis ee Carlton ku yaala ayaa waxa loo malaynayaa ruuxii ugu horeeyay ee cudurkan lagu arko hotelka yarimiisa xalaqaadka lala inuu ahaa nin ruux manager habeenkii ka ahaa hotelka maamulahayay inuu ahaa waxa la isweydiiyay ma asaga ruuxii ugu horeeyay ee cudurkan uu ku dhacay ee dadkan dibadda ka imaanayay uu ka qaaday ama haddii kaleba meesa asagaaba meel kale intuu ka soo qaaday saa ugu keenay marka security-ga ay u faafiyeen mid ay tahayba in asaga uu yahay ruuxa ugu horeeyay la og yahay ee cudurka ku dhacay
kadibna markaa security-ga gaaray security-ga halka ay ka sii faafiyeen waxaa asna aad loo isticmaalayaa wax la yiraahdo maqlaysan erey baryahan aad maqlaysan genome sequencing macnaheedu waxa weeye sumad cudurka waxaan maadaama virus yahay virusku wuxuu leeyahay markii microscopic iyo qalabka waaweynayo lagu fiiriyo wuxuu leeyahay sumadaasoo maaragtay la raaci karo meelihii uu soo maray oo ka soo qaada markuu ruux ku dhaco wuxuu yeelanayaa isbedel ayuu samaynayaa oo maaragtay aan si sahlan loo dareemaynin laakiin markii qalab casri ah oo high quality lagu high macnaha level lagu fiiriyo la arkayo isbedel yar oo ku dhacay oo sumad ah marka haddii marka loo baahdo calaaqaadka ka dhaxeeya viruska ku dhacay ruux hebel iyo hebel kale in markaa deedna la fiirin karo isbedelkii calaaqaadka ka dhaxeeya sidii hadda fiiriso kale wax uu dhigma DNA-da maaragtay bini aadamka la fiiriyo oo kale oo markii hadda dad wada dhashay waxaan ognahay ilma ay hooyada aaba dhaleen inuu macnaha ilmahaasi uu qayb ka wato hooyada aabahana qayb uu ka wato laakiin se aabihiina uu isna ka wato in aabihiisii kale iyo hooyadiisii kale in ka wato marka intaasoo dhan ay ilmahan markaa ku jirto oo ilaa soconayso ka awow ilaa marka qaarkood lagu leeyahay hataa dhowr kun iyo ka badan hataa ay gaadhayso oo markii hadii la fiiriyo la arkayo isbedelka maaragtay ku jiray mid kastaba marka kaas oo kale ayaa waxa la leeyahay isaguna wuxuu leeyahay sumad iyo calaamad noocaas oo kale ayuu virus ku leeyahay iyadoo marka halka laga raacayo ayaa waxa go'aan hadda hay'ad arrimaha ku takhasustay ay soo saartay inay leedahay 99% hadduusan ka badnayn cudurka hadda socda viruska ka socda Victoria hadda wuxuu asalkiisu ka yimid hoteeladii ka dilaacay wataana markaa ay tahay shakhsi dibadda ka yimid ayaa watay oo keenay marka midaasna way mid iyadana aad ku socota runtii saan sheegnay baramiyaha Victoria oo saan horaan u sheegnay in aad sumcadiisu u sarreysay ahayd Victoria ahaan aad looga jecel yahay xagga madaxda aadka loo qadariyana kamid aha gobolka wadanka Australia baramiyaasha in ay arintani rabaaxo weyn u keentay hasa ahaatee haddana sida uu u waajahay wixii dhacay ayaa runtii iyada naftigeedu waxa ay u soo timid iyadana maaragtay maxaa la dhihi jiray boobaan badan sababtoo inuu wax dhaco oo wax ka adiga ka yimaado ka yimaado inuu dhaco iyo inii maaragtay saad u waajahdo waa laba wuxuu kala bedelan weeye hadaad wax qalad ama ka dhaco ama meel kale ka yimaado markuu soo waajaho hadaadan si wanaagsan aadan u waajihin oo aadan maaragtay wixii aadan gacanta ku dhigin hade waa dhibaatada kale ta weeye marka waxa xaqiiqo ah oo aad la isugu waafaqay in sida uu u waajahay arintan uu maaragtay uga isugu dayay inuu u xalliyo inay tahay si maaragtay runtii aad iyo aad u sarreysa wixii horaan u dhacayba oo hadda tiradii u dambeysay waxay ahayd waxaa la yidhi 48 maalmood oo isjoog ah ayuu maalin kasta miidiyaha toos oo la hadlayay oo mararka qaarkood 2 saac ka badan uu hadlayay oo su'aal kasta oo la weydiiyo uu ka jawaabayay oo san marti inaba yaraatee uusan tusin daal iyo maartay ka cajis uusan tusin oo maartay waxaan ka taas lagu soo jeeyay uu ku helay maartay waxoogaa goobaabin fara badan iyo maartay amaan uu ku helay wixii dhacayba ha dhacee sidoo hadda uu waajahaya arinta doonayo inuu maaragtay uu xooga qabto taasna waxay ahayd dhageystayaal midii xaqii coronavirus iyo wixii dhacaya waxaan kaloo iyadana jeclahay inaan idin la wadaago arrimo aan marar hore idinku iri arrimo ayaa soo socda oo waxa idin ka dhigi doona taasi waxa weeye arinta aha dawladda doorashada councilka ama dawladda hoose ee gobolka Victoria ayaa soo socota oo lagu wada inay hadda dhacdo 24 sabtida ay ku aadantay inay dhacdo 24 bishan October ee soo socota inkastoo oo dadku u baahan yihiin inay la socdaan gobolka dhan doorashooyinkiisii councilka waxa laga wada dhigay posta ama waxa lagu codeynayaa boostada ayaa lagu codeyn taas macnaheedu ay tahay waraaqihii aad ku codeyn lahayd ruux kasta oo diiwaan gashan waxay ugu imaanaysaa adreeska u diiwaan gashan gurigiisa oo kale bay ugu imaan markaas intuu faraaqda furto iyo codeyn markaas uu dana washqad baa ku jirta washqada intuu xiro oo siil gareeyo
ayuu marka dibna boostada ugu celinaya waxaa marka laga maalmaadaha maadaama maalinka doorashadu waa sabtida 24 bishu tahay laakiin si maalinkaada dabcan boosta ma furno marka waxa loo baahan yahay waxaana lagu siinayaa balantii waqti dheer baa lagu siinayaa waraaqo ku imaanayaan inaad waraaqaha celiso 23 ugu dambeyn jumcada tahay waliba 5 galabnimo maadaama boostadu 5 la xiro waxaan isku dayay inaan idin la soo wadaago oo intaan sheegarayo haddii somehow ruux ay ku dhacdo khaasatan dadka maartay magaalada city of Melbourne magaalada madaxda ka tirsan meesha anagu waliba aanu deganahay xaafadaha Carlton North Melbourne iyo Kensington iyo kuwan kale magaalada u sii dhiba dhexdeeda inay gain karaan waraaqaha maartay guddiga doorashada xaruntiisa oo ku taala magaalada wadada Collins Street amaba maartay meesha ayadana kaleete xafiiskan councilka asagana oo ayadana meesha ay qayb ayadana kale xagga sida loo maamulayo doorashada inuu ruuxu toos u geyn karo maadaama maalinka doorashada ay tahay sabtida ay tahay waxaan u maleynayaa taa inay dhici karto laakiin waxaan xaqiijinayaa laakiin se markay noqoto boosto waa inaad maalinka horeysa soo dirto walaalayaal waxaan marar hore idin ballan qaadan oo ku iri inaan war idin la wadaagi doono ku saabsan arrinta doorashada gobolka councilka taasa waxay tahay marka aan in badan ka fikiray oo maaragtay dad badan igu booriyeen dhageystayaasha kamid yihiin dad badan oo ikhbaartii aan la wadaagahayay markuu cudurkan coronavirus waliba uu bilowday wargelin hayay yiri maaragtay igu booriyay ka hor xataa doorashadii gobolka ee hore iyo tii federaalka oo ka dambeysay dowladda gobolka bay ahayd dowladdii doorashadii waxa dhacday markii horeysay gobolka baa dhacday dowladii federaalka baa ka dambeysay taasoo ayadana aad xusuusataan dad badan inay ahayd waqtigii ugu horeysay aan bilaabo WhatsApp-ka inaan waliba akhbaar idin kula wadaago waxaana jeclahay inaan in yar arrintaasi waxyaalihii ugu weynaa ee igu sababay aan idin la wadaago anigu wadankan Australia muddo xoogoo baan joogay hadda 30 sano bay sii cagaageen saddex gaarinba laakiin se waxaan deganaa meelaha Soomaalidu ay ku badan yihiin waliba khaasan xaafadda Carlton muddo hadda 10 sano way dhaaftaan malaya 12 sano meelahaas ay ku sii socotaa ugu yaraan 8 ama 9 sanana waxaan ku dhex jiray community-ga oo isku dayay anigoo si maartay markaan la ku dhex jiray ma ahayn shaqaale dawladeedna ma ahayn shaqaale hay'ad kalena ma ahayn tabarucaad maartay anigu iska dhex ordahayay on is iri war nidaamkan dadkii adeega siin haya oo ma han noqoto mid dawladeed ama ha noqoto mid maaragtay kuwan aan dawladda ahayn dadkeenina uu ka dhex muuqanin maxay tahay see wuxuu jiraa marka si aan salkeeda u gaaro wixii ugu horeysay aan sameeyay wuxuu ahaa inaan bal meel kasta oo meeting ka dhacayo bilowga ugu horeysay laga soo bilaabo 2007kii 8kii meelahaas ilaa 9kii meeting kasta oo ka dhacaya Carlton inaan tago xaqiiqada runta marka idin sheego waxaan maleeyaa sanadkii ugu horeeyay wax alla waxaan ka fahmayay iyo wax meel u socdaan iyo waxa la sheegayo wax yar ayaan ka garanayay si kastoo aan luqadda u garanayay oo markaas aan halkan wax ku bartay dugsi sare aan halkan ku dhameeyay dadkiina aan ogeyn jaamacadna waan ku dhigtay laakiin se wax walba dhaqanka luqadda waxa ka muhiimsan marar badan dhaqanka iyo wax laga hadlayo hadda fiiri haddaan mitaal idin sheego shakhsi Soomaali oo luqadda Soomaaliga aad iyo aad u yaqaana haddii hadda Soomaaliya la geeyo asaa uu maqlo arrimaha laga hadlo gobolada iyo qabiilada iyo waxyaalo badan waxba ka garan maayo ma fahmayo waxay noqonaysaa wax kasta oo la sheego inuu tixraaco yiraahdo maxay tahay maxaa looga jeedaa uu yiraahdo oo dad loo sharxo oo uu ka damay laakiin se inagu hadda adoon ruuxii ka soo qadadka waliba ku weynaaday ee ku hana qaaday Soomaaliya waxyaalo badan oo inay isu arkaynin inay aad u fahansan yihiin ama aynan u arkima wax weyn oo saahayn ayaa ruux kaleeto oo waxa garanaynin aad iyo aad u dhibi oo asaga si u sahlan tahay waxay kamid oo kale inta badan dadka waaweyn ee hadda da'doodu aan dhihi karo kontumeeye gaaraysa hadda ama ku dhow 40 ilaa kontumeeye aad si caadi bay u garanayaan dawlad Soomaaliyeed inay jirtay dawladdii u dambeysay ee burburtay in ay dawlad xoog badan ahay markii u dambeysay siyaad barre Allah naxariisay laga qaaday uu dhacay jabhado inay maaragtay la dagaalameen ay arrintii qabiil isu bedeshay qabiilkii markii dambana dadku qabiilkii laga baxay haddadan la joogo iska caraatan iyo iska fadhi ku dir mooyeene arrin qabiil oo colaad oo dhab ah inayna jirin
inta badan iska sheeko iyo iska waxa la dhaho fadhi ku dir ereyga ugu jeclay dadka u bixiyo waxa weeye fadhi ku dir weeye mooyeen laakiin ruux aan waxa waxba kala soconin oo garanaynin waxaa ku dhacda laga yaabaa inuu waxa la yiri arin markii waxa la doqonto markii waxa la yiri la maxay ahayd markii la murmaayo in la dagaalamayo nidaamyadeed mahmaan noocaas oo kala jirta ruuxa doqonto markii laba ruux ay maartay ay murmaan waxay moodaysaa bashii lagu kala tago dagaal oo isla yarhay moodaysaa marka ruuxu doqon hadda uguma jeedo laakiin dadka aan dhaqankan Soomaalida ee hadda kaas oo kala ah dadka da'da aan sheegaya ee fahansan aan garanaynin arrimaha fadhi ku dirka ah ee iska bootaynta ah ee marka qabiilka iyo wax iskaga salaysan oo meel dheer sii gaarsiisanayn wuxuu moodi meeshan in lagu kala tagay meeshan dagaalkii u dambeeyay u bilaabanayo ruuxa iyo hebel oo maanta dagaal arrin qabiil iyo ka hadlayay inayna mar dambe isla hadli doonin inayna mar dambe is salaami doonin inay meesha ku kala tageen ama labada qoys inay u kala dhamaatay labada qabiil oo kale mana waxaan xusuustaa aniga si toos u gartaa 90yadii anoo jooga 91kii bay ahayd ama 92gii Nairobi baan joogay waxaan dhageysanayay BBC-da bahashan dadka aadka u dhageysan jiray hadda internetkii waxba ka qaaday oo dhahaysa arrin la yaab leh oo la sheegay qabiilada hogaamiya dagaalada ka socda gudaha Soomaaliya waxay koofiga iyo shaaha ku wada cabaan hoteelada ku yaala Nairobi marka wax la yaabo bay ahayd laakiin haddana waa xaqiiqada weey waa xaqiiqo jirta weeye waana arrin si caadi u dhacda oo maartay kor u dhacda waxyaalaha la dhigi karo Soomaalidu maartay ay kaga bedelan tahay mujtamacyada kale dagaalka iyo iska horimaadka waxa dhigi mararka qaarkood iyo show isku dhaca wax iska caadi ah uu yahay marka in laba isku dhacdo haddana ay heshiiyaan haddana laba kale isku dhacaan xagga isku dhaco maartay waxaad moodaa inay iska tahay baarto nolosheena inay ka tahay wax aad loo si xusuustana ma aha oo maartay si waxaysa oo raadin weyn si samayso ma waxaan uga jeedaa marka ama rabaa in hadda arrintii meel kale sii galo inaad fahanto dhaqan waqti dheer bay kugu qaadanaysaa aakhirkii waxa ay soo baxdeen ogaaday in mujtamaceeni meeshan nimid sababu waxay yihiinba ama luqad ha noqoto ama dhaqanka ha noqoto ama waqti la'aan ha noqoto ama inaan la daneyn wax kasta ruuxba waxba danay taabanaysa kama aanan qayb noqonin wixii dhacayay agaheena ka dhacayay iyo adeega la bixinayay waxaanu noqonay un dad adeega in loo bixiyo codsanaya ama sugahaya ama rajaynaya tii marka waxay igu qasabtay inaan waxyaalo badan dhaxgalo waxyaalihii ugu horreeyeen galay wuxuu ka mid ahaa wax la dhaho resident groupka oo maaragtay dowladda xafiiska macnaha guryaha uu la macaamilo oo dadka u hadla inaan galo oo markii dambe aan ka noqdo secretary aan ka noqdo waxaan markii dambe asna hay-ado intay lacag ku qaateen wax la dhaho manshade ay damceen markii lacagtii ay markii hore la siiyay dhamaatay inay xidhaan bay damceen markaas waxaan lama xidhayo dadka waxaan rabaa inay noqoto meel ay isugu yimaadaan ragga waaweyn iyo dhalinyarada oo ay dhaqankoodii iyo isku fahmaan ay ku wada sheekaystaan ima suurtagelin saan rabay arrintaas oo ma hirgelin iyadoo arrintii yada ay noo soo hagaagaysa oo cudurkan coronavirus-ka uu bilowday oo dhalinyaro yar runtii ay bilowday inay meesha isticmaasho laakiin si caqabooyin badan baa soo waajahday oo waliba dibna ka timid markii ay hay-adihii ay dareemeen active-ka ka ahaa meelahan in aan waxyaalaha aan samaynhayo ay ayaga ku tahay caqabo sidii ay dawladda lacag uga heli lahayeen sababtoo anigu waxaan ahaa ruux waxaas oo dhan u samaynhaya anigoon maaragtay lacag aan la isiinaynin lacagna aan rajaynin oo rabo inuu noqdo wax dadku ay isticmaalaan oo dadku ay ka faa'iideystaan ama lacag dawladdu ha bixiso ama yeena bixin haddii lacag imaan karto lacag la keeni karo wanaagsan laakiin se inuu noqdo albaabkaas albaab furan dadku yimaadaan ku sheekaystaan ku fahmaystaan waxyaalihii kale iyadana uga faa'iideyso waxaa ka mid ahaa meesha la dhaho kombiyuutarada dad badan baa garanhaya baryihii u horreysay bay aad active u ahayd oo xoog u lahayd oo dadku maaragtay kombiyuutarro badan dad badan runtii aan badhna lacag la'aan ku siinay badhna lacag aad u yar aan ku siinay dad badanna aan oga caawinay maaragtay kombiyuutarkooda hagaajintiisii waxyaalada ilaa yowmina hada aan oga caawino oo maantadan u dambeysay nin baa iila yimid kombiyuutar maaragtay printer uu soo gatay oo maaragtay u hagaajinayay haddayna dhicinna isbuuciina 2 koor 3 koor ayaan arrintaas oo kale weli sameeyaa oo ruux maartay ka caawiyaa arrimahaas kale ku saabsan
waxaa kaloo iyadana arrinta kale iyadana ka sameeyey waxaa ka mid ahayd oo dad badan iyadana ka caawisay waxa la dhaho legal service Carlton legal service oo iyadana nin lawyer ah oo akhyaar ah oo la yiraahdo Ian Cunliffe oo dawladda Australia meelaha ugu sarreysa iyo hay'adaha maaragtay private ahba ka shaqeyn jiray oon ahayn macnaha markaan saalahay waxa looga jeedaa ma aho shakhsi ama immigrant aha ama dadkeena inaba yaraata calaaqad bal waxaan waxyaalihii ugu horeysay ee ugu yiri waxa kamid aha waligay xamdiyow dad lama macaamilin maaragtay dadka Afrikaan iyo ma aan waqti chance umaan helin fursad umaan helin in la macaamilo aan maaragtay la waxay ninkaasi wuxuu bilaabay aan macnaha wada sameynay asagaas aad lawyer-ka Carlton Legal Service aad u fara badan ayuu Carlton ka caawiyay oo uu meel kasta uu la tagay ha noqoto police ha noqoto VCAT qoladan guryaha arrin kala socota ha noqoto maaragtay maxkamadda ganaaxa xataa arrimo criminal ah xataa waartay maxkamad waxaan u maleynayaa maxkamadda sare umuusa tagin xataa maxkamadda sarena marbuu maaragtay dad ugu hanjabay inuu arrimihii robo-debt ka ahaa ee deymaha dadka lagu sheeganayay in uu case geynhayo markii dambena dawladda dhexe federaalka ah ay arrintii istaajisay oo in maaragtay ay sidii uu rabay ay dadkii u samaysay iyada naftigeeda diyaar buu ahaa inuu la tago marka iyadana Carlton Legal Service ka mid ahaa waxyaalaha maaragtay rasmiga ahaa ee Carlton anigu maaragtay qayb ka ahaa aan sameeyay markaan intaas oo ku dhex jirto waxa ku soo baxaysa inay jiraan caqabado kale oo maaragtay ka hortaagan inaad u gudubto stage-ka kaleete oo walibana caqabadahaasi sii xoojinayaan dad aad isdhihi show inaad dadkiinan meesha uu hadda joogo ayaa iyaga dantooda iyana yara jirtaa ama ha noqoto xag shaqo ay ku helayaan ama ha noqoto dareenka iyaga ay dareemayaan dad waxba qabsan karin yaan wax u qabanaa oon caawinaa ruuxu bilmaanku waa jecel yahay inuu maaragtay uu dhaho hataa hadduusan lacag iyo wax ku helaynin ruux baan caawinay dad badan baa jecel badanku dhayaan dhihin dad baa jecel waana arrin fiican ma xumo laakiinse haddaadan ahayn ruux dhibaato haysato ama curyaannimo haysato ama arrin kala haysato waxaa fiican inaadan noqonin ruuxaasi la leeyahay waa la caawinayaa isaga mujtamacaan haddaanu nahay khaasatan mujtamacana Soomaalida dhaqaniyan iyo caadi ahaan manihin dad wax loo qabto waa dad waxaanu nahay taariikhiyan meel kasta markii la soo raro si kasta loo raaxo dad wax qabta iyagu wax qabsada iyagu marka koobaad dadka kalena wax u qabta oo iyagu maartay lagu daba fayro ma aho dad iyaga wax loo qabto oo loo adeego sidii dad aan maartay aan waxtar ahayn haddana waxa inagu keenaya tan waxa weeye un dhaqankii ina garanaynin luqadii ina garanaynin waxa inagu cusub isku soo duuduubo arrintii marka inta socotay oo aan la macaamilay wax badan ka bartay ururada siyaasadda wax badan ka bartay madaxda siyaasiyiinta ah siday u shaqeeyaan mararka qaarkood markaan dadkii dantoodii ka hadlo oon u sheego wixii oon meeshii dhaafaynin su'aal baan isa su'aalay oon idhi maxay tahay dadku ma danaynayaan miyaa ma rabaan miyaa ma dhibkay kula jeedaan waxaa ii soo baxday markii dambe arrintu inayna saa ahayn wax walbaba markaad aad u dhex jirto meel kale ayaad ka arkay oo meel kale aadan ka arkaynin taas ii soo baxda waxay tahay war bilim aadan baynu nahay inagiina weliba waxaanu nahay aad isula weyn aadna u qab weyn loona qaadanayo dad dhab aha serious macnaha loo qaadanayo oo si markii loo fiiriyo aan la yasi karin haddana adigii saas ahaa ayaa waxaad doonaysaa shakhsi inuu ku hago ku tilmaamo ilaa aad asaga la tartanto ood maaragtay tiraahdo kuma baahni ay dhaaf anaa waxa iga qabsanaya arrin sahlan ma aho arrintaasi arrin sahlan ma aho dadka u malaynaya inaad arrintaas oo kale intaad samayso iska dhici oo maaragtay ku dhaqaaqi karto oo expect garaynaya arrin sahlan ma aho waa arrin aad u baahan tahay haddaad doonayso saa inaad samayso inaad adigu gacanta arrintaada ku dhigto ood tiraahdo waxa hala ii sameeyo aadan dhihine aad tiraahdo waxan seen u samaysan karaa ama waxan maxaan u samaysan kari la ahay haddii ay tahay la ii sameeyana inaad intaad ruux kale ama mujtamac kale farta ku fiiqdo ama miisaal u soo qaadato aad tiraahdo waxa mujtamacaasi ay samaysan karaan maxaan anigu u samaysan lahay waxa mujtamaca loo samaynhayo maxaan la igu samayn lahay waliba waxaan aad u jeclahay oo in badan anigu isku xooga saaray inaana dhihin waxa la ii sameeyo dhaho wax inaan samaysan raba
macnaheedu ma aho inaad leedahay anaa lacagaha keensan aniga guriga dhisan anaa shaqada abuuran ma aho macnaha inaad adigu samaysato dawladdu waa dawladdeeni weeye qayb baan ka nahay canshuurteedaan bixinaa waana bixin doonaa ciyaalkeenana qayb ka noqon doona inaan noqono waxaan annagaa samaysanayna inay noqoto waana waxaan wada leenahay marka sideedu sumana waa lagama maarmoon inaan qalbigeenna aanu si fiican u gelino inayna jirin wax la dhaho dawlad oo meel degan oo meel fadhido oo gaar ah oo si kala loo arko waa shakhsi inaga iyo adiga oo kaleeta ah oo maaragtay tabta adiga aad u xanaaqi karta tabta adiga wax u jeclaan karto wax u jeclaan karaa tabta adiga wax ugu eexan karto ugu eexan karaa sida aad adiga u leedahay saaxiibo iyo ehel u leedahay iyagana ehel u leh yaanan la ka soo qaadan inuu dad inay jiraan aan dareen lahayn oo sida maartay computerka oo kala button intii la taabto dad button ka taabato wixii loogu talagalay inuu soo daayo ama ka imaato ay ka imaanayso waxa loo baahan yahay inaanu taa ogaano oo la macaamiisho oo adiga meelo badan lagu arko kow ruux mar la ciseeyo oo ruux uu arko inuu aad ka maarmi karto inuu xagga kale ka cabsado inaad dhibaato u keeni karto oo maartay dhibaatada macna laga hadlayo mid gacan iyo waxa ay laga hadlayo inaad intaad ka leexato adigii hadhow intuu ku baahdo aad dhihi karto si ilamaada dhaqmin si fiican xaqaygii ima aadan siinin waad igu xadgudubtay aad dhihi karto waa inuu dareemo waa inaad wada kaliya ku furmi karaan laakiin se waa inaanan noqonin dad ayagii loo hayo albaabka oo dad kaleeta waliba ay albaabada u furahayaan ama ay dad kale u hadlahayaan waxaa loo baahan yahay inaanu meesha dhaafno mar raba hadalkan ku si dheeradee taas markay intaas soo dhacday iyo in kale ka badan oo hadda aan idin la wadaagi karin oo bad misaal yihiin badna ay yihiin waxyaalo aan khibrad ah oo aan qaatay waxaan go'aansaday in aan u istaago dawladda councilka magaala madaxdan gobolka Victoria ee Melbourne aniga oo xubin ka noqday oo ii suurta gashay aad iyo aadna macnaha galad iigu tahay ururka ugu weyn wadankan Australia siyaasadda wadankan Australia ee Labour Party la dhaho ay ii suurta galiyeen inaan ayaga magacooda ku istaago oo ay taageeraan oo 3 ruux oo ka tirsan ururkaasi oo u tartamaya 9 kursi oo councilka magaalada Melbourne waana magaalo madaxda gobolka Victoria magaalada labaad dhaqaalaha labaad ee wadankan Australia weeye in aan 3 ruux oo ururkaasi muddo 20 sano aha oo u dirsado council ay cayibaan macnaha endorsement waa leedahay macnaheedu waxa weeye ruuxu inuu xubin ka yahay oo meel u istaago ma aho laakiin se ruuxii xubin ka aha haddana intii asagii la doorto la yiraahdo adiga yaa noo matalaya meesha runtii waxay ii tahay maaragtay maxaa dhihi sharaf iyo galad aan u qabo ururkaasi oo aaminsanahay inuu yahay ururka inaga dadkeena Soomaalida aha East Africaanka aha dadka soo galootiga guud ahaan wadankan ku cusub awoodoodu ay xadidan tahay ilaa hadda nood inaan xagga maskaxdeena iyo tabarteena oo kala ma laakiin dalka waan ku cusubnahay inuu yahay ururka naturalka inoo ama dabiiciga inoo aha maaragtay wax ku qabsan karno inaanu qayb ka noqono aan lenoo arkeynin inaanu nahay dad meel kale ka imaanaya sidaas oo kale ma noqon karno ka soo qaad ururka hadaan dhabta u fiirino ururka la yiraahdo liberalka oo kaleete oo dadka ay matalaan ay u arkaan inay yihiin dadka maaragtay asalka u leh manihin inaga xaqiiqada markii loo fiiriyo ma aanu nihin inaga ma aanu nihin waxaan laga arki karaa oo idinla wadaagi doonaa insha Allah usbuucyada soo socota waxyaalihii talaabooyinkoodii kamid ahaa iyo ficilada ay qaadeen markaan liberalka sheegayana wadankan Australia laba urur ba siyaasadda dawladda qabata ururka waa xulafo ay hogaaminayso liberalku iyo ururka Labourka ah inta kaleete waa macnaha waxa weeye dabakatuur oo kaleete weeye marka inagii oo ku cusub meesha oo tabarteedu iska yar tahay inaan dantu inagu qasabtaba mooyeene inaanu dabakatuur aan sii daba istaagno ma u arko aniga inay munaasab tahay arin ugu haboona ay tahay marka saadaradeed waxaan idin sheegayaa inaan danteena iyo inaanu ka muuqano meelaha siyaasadda go'aanka laga qaato wadankan meelaha loogu sii dhawaano wadadaana ay u furanto waana idin la wadaagi haddaan ku guuleysto iyo haddaan ku guuleysan waayaba caqabooyinkii soo hog istaagay wixii aan arkay iyo wixii khibrad ahaa
ilaahay dartii ah ayaan idinla wadaagay anoo kaliya ka fiirinayo danteena wadankan eenu soo dooranay inagu inaan nimid eenu maartay wadankeena ah aadna inoo soo dhaweeyay aan lana fudaysan karin faa'iidooyinka iyo soo dhaweynta lanagu sameeyay wax shakhsi kasta waxaan ku dhaaran karaa 99% haddayna dhammaanteenba ahayn ruux lacag ku filan watay 100 iyo 200 iyo mooyeene iyo wax hanti ku filan watay ma jirin marka wadankan imaanayay ruux kastana meel buu degan yahay dadka intiisa badan wuu shaqaystaa lacag baa soo gasha cuntadiisa iyo gurigiisa iyo inna haba yaraatee kaga jirto wixii ah marka dad baa laga yaabaa mararka qaarkood arrimo kaleeto oo lacab saqiir ah inay maaragtay ay ku waqti iskaga bixiyaan oo ay ku waxayaan aynan iloobaan ama ay u maleeyaan inay arrin sahlan tahay in aadan meel aad seexato idiga iyo ehelkaaga iyo ciyaalkaaga aynan inna haba yaraatee qiiqilkaaga jirin cuntadaada iyo qutul yoomkaaga iyadana ayna kaaga jirin nabadgelyadaada iyadana sidoo kale iyadana inna haba yaraatee maantadan haddadan aan joogno inayna qiiqilkaaga jirin saddexda ugu muhiimsan ee adduunku nolosha adduunka aakhira mooyeene waa saddexdaas weeye intiibana midna inna haba yaraatee wax qiiqil inagama jiro marka arrintaasna yaan la fudaysanin arrintaasi si kasta sababta u timaadee wadankan aan ka helay waa inaanu marka inagana aanu mahad celin iyo anagoo u qiraynana arrintaasi oonu maartay yareynaynin aanu qayb uga qaadano oonu nidhaahno weliba markaanu wax qabanayno ma aho inaanu nidhaahno wax annagaan soo dhacsanaynaaye inaanu nidhaahno waxaan rabnaa inaanu qayb ka qaadano wanaagga la samaynhayo contribution inaan samaynaan rabnaa inaan noqoto oo meesheena aan kasoo istaagno waxaan rajaynayaa usbuucyada soo socota inaan idinla sii wadaago doorashadu waxay ku aadan tahay 20 saan sheegay October weeye hadalla waxaa socda aha in dib loo dhigo maadaama uu cudurkii coronavirus-ka aad ugu soo batay gobolka Victoria maalmahan dambe hoos bay u yaraatay in taa wax ka bedesha laga yaabaa hadalla waxaa socda dawladda ka soo baxay dawladda gacanta ugu jirtaa inay noqon doonto ilaa December in dib loogu dhigo wali lama go'aansanin hadalla kalena waxay leeyihiin bisha saddexaad iyadana sanadka dambe dib loogu dhigaa laga yaabaa laakiinse waxaa la leeyahay way adag tahay in 12 bilood oo kale iyo wax noocaas oo kale dib loo dhigo laakiinse wali go'aan lama qaadanin hadda se qorshaha noo socda waxa weeye waxaanu ku soconnaa oo u soconnaa in doorashadu ay dhacayso bisha October 24teeda oo macnaha 23 ay tahay waraaqaha in la celiyo waana gobolka oo dhan weeye Melbourne basita ma aho Melbourne baan anna u taagnahay taageeradiina yaan rajaynayaa oo idinka codsanayaa mid aniga shakhsi ana ma ahe waa mid community-geena Afrikaanka ah guud ahaan maba ahaba xataa Soomaali iska badaaye East African iska badooday anu markastaba meel markaan ka hadlayo waxay wallahi billaah ma isticmaalo aad u yar baan isticmaalaa ereyga Soomaali East African ayaan ugu isticmaalaa dadka walaalaheena ah isku meel ka nimid markii lagu fiiriyo Afrikaan baa lagu arki dadka inta kale maba garanayaan baa farqiga weyn iyo meesha tahay waxaad kala tahay East Africa markii la dhahana dana waa bilaanteedana waa isu agnahay isku meeshaan ka nimidna aad iyo aad bay isugu dhowdahay wax badan oo markii halkan waanta hadda la joogo inoo dhaxeeyana wuu yar yahay markaan badanna alxamdulillah hadaan aad u fara badanno laga yaabo markaa inaanu sii kala waxaysano oo maartay nimba dhinaciisa iska dhaqaaqo laakiin hadda danteenu aad iyo aad ayay isugu dhowdahay sidaa iyo maca salaamo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh